السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow Somali Fitness haddii aad doonayso inaad miisaan dhintid ama muruqa dhisatid ama aad ku noolaatid nolol caafimaad leh waxaad joogtaa meeshii saxda ahayd farxad bay noo tahay bahalkan waa iga damay iska daa farxad bay noo tahay laakiin sug waxbaan soo hilmaamay waa soo laabanaya hadda soo ma carfaayo waxaan rabnaa maanta inaan ka jawaabno su'aal runtii dad badan ay isweydiinayaan oo ah waqtigee ugu fiican oo aan jimka aado ama subaxii ma galabkii ma duhurkii ma habeenkii markay dadka jiifaan runtii su'aashan waa su'aal muhiim ah aniga isweydiiyey dad badanna ay runtii horey isku weydiiyeen runtii waxaan rabaa inaan ku sheego waqtiga aad jimka aadid wax micnaa ma leh waxaa aadi kartaa waqtiga aad fursadda heshid waqtiga ugu fiican oo aad jimka aadi kartid waa waqtiga aad fursad u heshid inaad jimka aadid haddii aad subaxii helaysid inaad jim aadid aad haddii aad galabkii fursad u helaysid aad haddii aad duhurkii u helaysid shaqooyinkaaga amaba iskuulkaaga inta udhexaysa amaba waqtiga jimka la furo amaba waqtiga ay dumarka leeyihiin jimka ama waqtiga ragga ay leeyihiin hadba meesha aad joogtid qof walba meesha uu joogo waxa uu qabto wax badan bay ku xiran tahay runtii waqtiga aad jimka aadaysid laakiinse haddii aan isweydiino runtii waqtiga ugu fiican micnaha waxaan u fahmi karaa in aad leedahay waqtiga baan ka heli karaa natiijada ugu fiican markii aan jimka aado aniga ahaan runtii waxaan jeclahay subaxii inkastoon mar walba subaxii aadin oo hadda aan baryahan aad ugu dadaalaya inaan subaxii aado laakiinse subaxii marmarka qaar way igu adkaanaysay waayo shaqooyin badan baa laga yaaba habeenkii inaan qabto subaxii inaan dhaqso kacana waxay igu noqonaysay runtii inay igu adkaato waayo waxaan isku dayay inaan hurdo fiican helo sidoo kalena aan shaqooyinkayga dhameey habeenkii aan qabanayay kadibna aan subaxii jim aado way igu adkaanaysay laakiin waxaan isku dayay in aan schedule-kayga amaba qaabka schedule af Soomaali maxaa lagu dhahaa comment nagu soo qor qaabka ugu fiican oo runtii waqtiga ii suura gasho subaxii sababta aan ku jeclahay haddii aan kula wadaago runtii subaxii marka aan jimkayga aado maalinkaas dhan waxaan noqonayaa qof firfircoon oo nashaad leh oo runtii rabo inuu wax walba runtii qabto sidoo kale faa'iidada ay leedahay inaad subaxii jimka aado waxaa ka mid ah ma helaysid marmarsiinyo maalinta kale haddii laga yaabo inaad meeting aadid haddii shaqo dheeri ay soo baxdo ama haddii xaafadda lagaa soo waco lagu dhaho arrin degdeg ah jirta imow waqtiga aad jimka aadi lahayd jimka subaxii aaliseedii markay dadka jifaan baad aadi jimkaaga hadhowna galabtii meeshaad doonta aadi kartaa waxaad doontaa qabsan kartaa faa'iidadaasay leedahay haddii aad runtii aysan macquul ku ahayn in aado subaxii galabkii iska aad aan mar walba waqtiga aadid wax micnaa ma sameynayo waxaas micno sameynayo in aad jimka aadid aadna aadid maalmaha aad ugu talagashay inaad aadid sidoo kale waxaan rabaa arrin muhiima runtii inaan idiin sheego oo aanan ku saabsaneen waxaan ka hadlayna maanta waxaa weeye nasiino samayso jimka maalin walba qof aadi kara ma jirto haddii aad aadid maalin walba runtii wax fiican laakiinse isku day inaad 2 maalmood qiyaas ahaan aad nasatid aniga qaabkan waxu sameeyaa 2 maalmood waa aadaa ama maalin aan nastaa 3 maalmoodna waa aadaa 7 maalmood sidaasaan ku waxeeyaa maalmaha nasiinadaada marka waad ku aadisan kartaa waxyaabaha dheeriga muuqaalkan runtii waxaan islahaa wax yar buu noqonayaa like waa igu dheeraad waa mahadsantihiin su-aasha maanta haddii aan adiga ku weydiiyo waqtigaad jeceshahay inaad aadid jimka iyo sababta aad u jeceshahay inaad aadid waa mahadsantihiin fadlan haddii aad muuqaalkan ka daawanaysid Somali Fitness page-keena fadlan like the page-ka asxaabtaada u sheeg kumention garee hoos sidoo kale haddii aad YouTube-ka ka daawanaysid subscribe ka daawanaysaan YouTube-ka hadaa ka doonto fadlan subscribe dheh wax weyn bay noo tahay sidoo kalena fadlan faallada iyo feedback-gaaga iyo waxaad doontana waad soo weydiin kartaa aad baa umahadsantihiin mar kale intaan iska arki doono hadduu ilaahay yiraahdo muuqaalka xigo khayr badan insha allah jimicsada caafimaadkiina ka shaqeeya muruqa dhista guul baa idin rajeynayaa nabadeey as usual ku dhaca